idinla wadaago maansoo iyo gabay haddaan soo horeysiiyo maansada waxaa la yiraahdaa maansada magaceeda gefka jooji noolow gefka jooji noolow kale dhamaantiin wada noolaynahay ilaa cayayaanka loo sheegaya haddii aan garanayo amplifier lagula hadlo amba wax gaar ah loo adeegsado qudhooda maansada waan u sheegi lahayn maansada gefka jooji noolow waxay idinka dhiirigelinaysaa oo idinka digaysaa in aad qof ibni aadana noocu doonaba ha noqdee aad ku samayso gefka jooji noolow kolley waxay igu dhaliyay waxyaabo badan oo ku dhex arkay dhalinyarta gaar ahaan marka la joogo dhinaca xidhiidhka kolley waxaynu adeegsanaa inteena badan majority-geenu waxaynu adeegsanaa amaba saameyntiisu inta ugu badan waxay nagu yeeshaa midhadhalkiisu saameyn buu nagu yeeshaa dhammaanteenba kolley markaa maasada idinkaa kolley waxaa ku dhex jira ka akhrisan doona waxay ku bilaamaysaa maasadii odhanaysaa galiiliyada jidhkayga iyo goohayga maqalo ruux garaad le baatee gefka jooji noolow qaladkaad gelaysiiyo waxaad geysanaysaa waa gooda abeesoo suntu gowlalaysee gefka jooji noolow qalbiyadaad gelgelaysiiyo sharaftaad gubaysaa waa mid adiga kaa go-an oo aad garowsane gefka jooji noolow maxay qof ibni aadana amba walaashaayo kale ama walaalkaayo kale muxuu kugu dhib mudanaya maxaad ugu gelinaysaa noloshiisa khalkhal maxay saameyn ugu yeelanaysaa noloshiisa oo uu farxaya markaad la soo hadasho ama ay kula soo hadasho marka kalena uu murugoonaya waxay unaysaa qalbiyadaad gelgelaysa iyo sharaftaad gubaysaa waa mid adiga kaa go-an oo aad garowsane gefka jooji noolow goor uunbaad addoonow ka galban adduunkee intaan iilka lagu geyn oonad gelin cadaabaha gefka jooji noolow maxaad ereygu racan iyo wax xumaanba geli kara dadka ugu ganaysaa ma adigaa ka gamila gefka ruuxu kaa galo qofka gaawe kuu cula guushaada kula jecel adna gudimaha u qorin iyo waran gelayo ashashiisa goyn kara dadka geli halkaago markaad qofka wax ku samaynaysaa ama wax ficil aad doonaysaa inaad ku dhaqaaqdo cid doonaha haado ka soo qaad waxaad ku samaynaysaa haddii lagugu samayn lahaa maxaad dareemi lahayd sideed noqon lahayd haddii lagugu sameeyo waxaad imika qofka kula kacayso dadka geli halkaago gunnimada ka dheerow ha u gelin gaf aadmiga ha ka gelin qof aan mudan oo gargaarku soo biday maasadii gefka jooji noolow kolley intaasay idinku eegtay dhammaantiin kolley waad ka wada bogateen laga yaabo in qaar badan oo madasha fadhiya ay taabatayba kolley macnaha iyo nuxurka ku jira waad ka wada bogateen dhammaantiinba gabayga ku xiga waxaa la yidhaahdaa dawo male kolley waad isweydiinaysaa waxaan aan dawada lahayn waa maxay sayna tacaawa maxaa cishqiga ku ururiyey gabaygan dawo male waxa uu ka sheekaynayaa kolley tuducu sharaxi kar maayo laakiin erayo ka mida dhowr bayd oo ka mida haddii aan isku dayo inaan sharaxo waxaa ka mida wuxuu ka sheekaynayaa isaguna waxaanan dawada lahayn